Soomaalida ku dhaqan xarunka qaxootiga Dadaab ayaa si mug leh ugu dabaaldegay xuska munaasabadda lagu weyneynayo maalinta 1 Luulyo oo ku beegan maalinta xorriyadda iyo midowga golaha waqooyi iyo golaha koonfurta Soomaaliya. Sidoo kale marti sharafta waxaa ka mid ah musharax xildhibaan Siyaata Banaadan oo tartamaya golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya oo ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay si guud in ay u istaagaan ka shaqeynta dib u dhiska waddanka dib u walaaleynta iyo midnimada shacabka Soomaaliya. Wuxuu ka digay wax kasta oo keeni kara khilaaf, dagaal, qalalaaso, barakac, burbur iyo wax kasta oo sababi kara in dib loogu laabto dhibaatooyinkii 30 sano ee burburka kadib la soo maray. dhalinyaro badan oo meeshaan taagan inay tahay maalinta koowaad oo arkaan calanka Soomaaliya loo dabaaldego beentimiya maalin Soomaalinimada ku weyn waa maalinta ay xoroobeen gobolada waqooyi iyo Soomaaliya koonfur waa maalin aad loo weynayo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladda dhalinyaradii gabdhihii dumarkii wiilashii ay ku soo dhaweynayaan maalinta xorriyadda Soomaaliya waana mahadsantihiin waa maalin taariikhda maanta waa maalin loo baahan yahay in bulshada yaryar kuwa yaryar calanka qabay soo goraya inay iyaguna la qabsadaan waana mahadsantihiin cidii soo abaabushay xafladdan aad baan ugu mahadcelinayaan aad baad u mahadsantihiin halla hayo insha allahu tacaala safarta ku xigta waxaa laga yaabaa inaan xafladdan ka weynaan dhigano insha allahu waanad mahadsantihiin ha lagu dadaalo sidii midnimada Soomaaliya loo xoojin lahaa insha allahu ha lagu dadaalo waa maalin dhalinta berito mustaqbalka hogaamiyaasha ah inay u qiiroodaan ay u dhiibiyaan ay u dabaaldegaan ay habboon tahay sidaad ogtihiinba munaasabadan maanta aan u dabaaldegayno waa maalinta xornimada Soomaaliya waqooyi iyo koonfur ay midoobeen xornimadaas aan harsanayno inkastoo annaga ku dheelay muddo 30 sano ah waxaa dheliyey 13 nin oo dhalinyaro ah oo arrinta gumaysiga ka dhiibiyey 13 hadda ninkan 300 oo ka badan baa 13 nin waqooyi ilaa iyo koonfur ayay isku xireen Soomaaliya oo idil bay mideeyeen Soomaaliya oo idil bay xornimadeeda dhaliyeen waa 13 nin Soomaaliya Allah mideeyo Soomaaliya Allah daaweeyo dowladda Soomaaliya Allah noo dhaliyo ilaahu qaxootiga naga saar ilaahu Soomaaliya oo dowladda oo midaysan ilaahu noo dhaliyo ilaahu dowladda Soomaaliya noo dhaliyo adaawada ilaahu umurteena soo jiid ilaahu Soomaaliya mideeyo ilaahu Soomaaliya mideeyo ilaahu Soomaaliya mideeyo waad mahadsantihiin dhalinyaro waxaan kugu dardaarmayaa inaad gabdhaha isqabsataan inaad maalinkan xafladda dambe ilaahay waxaa uga rajaynaya annagoo Soomaali ku wada ciidna meel walbana aan tamashlaynayna ilaahay noo dowlad Soomaaliya markaan hadda usoo noqdo baaqii aan hore idinku hayla jiray aan u diri lahaa dowladda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaan mar hore mid lahayaa inna waxaan leeyahay dowlad goboleedyada madaxdooda midda Roble iyo madaxweynaha dowladda federaalka aan leeyahay Farmaajo waxay tahay Soomaali bay dulman tahay way dhibaataysan tahay adduunka ayay ku firarsan tahay diiniyan baan u dulmannahay dhaqan baan u dulmannahay dadnimo aan u dulmannahay wax horumarkaan ka dulmannahay magaca qaxooti waa magaca aad u xun nin Suudaanis oo heesay wuxuu dhahay being a refugee is not a choice but it's a circumstance qaxooti noqon ahaanshaheeda maaha wax walba laakiin waxay duruufta Allah naga saaro dowladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaa ugu baaqaya duruufta dadka Soomaali ay ku nool yihiin ee dhibaatada ah inay uga damqadaan oo baan oo dowlad Soomaali oo xor iyo xalaal ah ay noo soo dhisaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa magaciisa qadiijo Cabdi Qaadir Maxamed oo magac dheer aan degan xiriyaha qaxootiga ifo maanta waxaa aad iyo aad loogu dabaaldegay 1 Luulyo insha Allah Soomaaliya israacno bismillaahi raxmaani raxiim magacayga anoo ku bilaabaya ayaan maanta magacayga waxaa la dhahaa marka horeysa Cabdikariim Maadi Xoosh dadku laakiin shiina ii yaqaanaan waan gartay maanta waxaad moodaa inay shucuurtaanadu aad u kacsan tahay maadaama ay tahay 1 Luulyo oo maalinkii Soomaaliya calankeedaba kor loo qaaday ay ka mid tahay
maanta dadweynahana indhaaga ku aragtaa waxa ay samaynayaan marka aad iyo aad baan u faraxsanahay bismillah samawada siyato aadan ahna musharax ku tartamayo aqalka hoose golaha shacabka Soomaaliya hadda waxaan ku sugnahay qaali ah oo ay dhalinyarada iyo kuwa bartaxarooyinka xogtiga dab isku imaadeen ay ku baldigayeen kuna muujinayaan shucuurtooda Soomaalinimo isku imaadaan inay xalfada kowda luuliyo ay u dabaldegaan marka waa maalin wanaagsan waa maalin weyn waa maalin maartay qulubta Soomaaliyeed dhamaan ay maartay wada dalsanayso shucuurteedana aad ay maartay kastaa maanta waxaan arkaa dhalinyaro badan oo daayar ah oo aan weligooda arkin wadankoodii inta badan oo aan weligooda arkin xalfad caynkan oo kale oo loo dabaldegayo kowda luuliyo ina maanta kala soo qayb galo xalfad caynkan oo kale aadan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay ilaahay idinka insha Allah rahmaan mid xigto in iyadoo nabad ah aan isugu imaano wadankeeni hooyo insha Allah rahmaan oo aan si nabad ah u dabaaldegno dhamaanteena anagu maartay nabad ah oo maartay wadaniyad ay naga muuqato insha Allah marka waxaan leeyahay hambalyo Soomaaliya meel baa joogtana ilaahay ha nu wadeeyo insha Allah rahmaan midnimo iyo barwaaqo iyo bismillah insha Allah rahmaan dhalinyarada halkan ku nool ee xarooyinka dhadhaabna waxaan leeyahay isku duubni muujiya Soomaalinimo muujiya walaalnimo muujiya iskaashada aan leeyahay iskar bistaaga wadankeena aan ilaahay u barno ilaahay nabad noo yeelo insha Allah wadanka ilaahay oo barno inuu ilaahay culasaha haysto ilaahay noo dul qaado inuu amni ilaahay nooga yeelo inuu ilaahay maanta dhibaatada dhaxtaasho inuu ilaahay nooga qaado insha Allah waa islaamada dhamaanteena Soomaaliya noolata hambalyo Ali Nasir Bashir Wamo TV xarinka qaxootiga ee Dadaab Kenya